بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan anigoo ku hadlaya magaca dawladda oo dhan u diraya tacsi eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay wasiirkii hore dastuurka wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo idinka iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan isagana waxaan leeyahay Ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday u sheego wasiir Xoosh waxa uu ahaa halyeey qaran waxa uu soo dadaalay dadkiisa iyo dalkiisa Soomaaliyeed wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka shaqada ugu weyn oo gacanta ku hayana waxay ahayd qabyatirka qoraalka dhameystirka dastuurka oo uu soo gaarsiiyay meeshii ugu dambeysay oo ay shaqo yar u harsanayd kan hadda shacabka Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan waxa uu ahaa wasiirkii ka soo shaqeeyay wuxuu ahaa halyeey Soomaaliyeed oo ka madax banaan qabyaaladda maskax furan dhiibta fikirkiisa ka madax banaan musuqmaasuq jacayl dawladnimada iyo Soomaalinimada wuxuu ahaa wasiir karti iyo hufnaan shaqadiisa ku qabta waxaan ahaa nin daacad ah oo aan laalaab iyo qiyaamo aqoonin ka ra'iisul wasaare ahaan waxa maantay xukuumaddeeda ka baxay wasiirada ugu howl karsanaa mid kamid ah anigoo sidaas daraadeed dareensan xanuunka qoyskiisa iyo eheladiisa waxa kaloon dadka Soomaaliyeed iyagana uga tacsiyeynaya in aqoontaas ummadda Soomaaliyeed ka baxday si loo maamuuso wasiirkaas Allah u naxariistay waxaan magacawnay guddi qaran oo ka shaqeeya aas qaran oo loo sameeyo wasiirka oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo ay xubno ka yihiin wasiirka waxbarashada wasiirka warfaafinta wasiirka diinta iyo waqaafta wasiirka kalluumaysiga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka amniga gudaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka waxaan rajeynaynaa in la keeno meydkii marxuumka oo aan kulligeen ka wada qayb qaadano aaska familkii iyo ehelayadii uu ka geeriyooday waxaan uga mahad celinayaa inay ummadda Soomaaliyeed la qaybsadeen aqoontiisa waxaan mar labaad idin leeyahay Ilaahay dhibka idinku dhacay ha idinka shaafeeyo isagana Allah u naxariisto annaguna waxaan gudan doonaa waajibkii qarannimo oo nasaarnaa oo ahaa halyeeygaas qaran oo naga baxay in loo maamuuso sidii ugu habooneed mar labaad Ilaahay ha u naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh